Aniga iyo reerkeena waxaa nagu dhacday musiibo aad iyo aad u weyn. Qalbigaygana uu qaadan waayay heer aan ka quustay noloshii oo dhan. Waxaa nagu dhacday musiibo da'dayda ka weyn oo aan malaysan karin. Waxaan tamanin jiray ayuu dhahay xilliyada qaar haddii isdilka uu xalaal yahay inaan isdilo. Balse markaan joogteeyay istighfaarta, alxamdulillaah, Ilaahay nolosheeni si tartiib tartiib ayuu noogu soo celiyay, musiibadina nooga guurtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa wax kasta oo mustaxiila midka ka dhigo suurtagal. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalaha qaaliga ee nagu xiran iyo walaalaha nagu soo biiri doonaba. Waa mahadsantihiin booqashadiina, jasaakumullahu khayran sida wanaaga iyo khayrka u soo ajiibteen. Marka ugu horeyso aan ku wada salina nabigeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam si aan u helno ajar fara badan. Nimcada ah inaad kilib khayr fiirsato ama wax khayr waqtiga ku lumiso ma aha wax la wada helo, markastana dheh alxamdulillaah, Ilaahiga ku waafajiyay khayrka inaad jeclaato. Alxamdulillaah, dhammaanteenaba allaha nagu sugo khayrka. Walaalahayga qaaliga ah, Allah subxaanahu wa tacaala waxaan nooga baryayaa qof walba meesha uu ka kurbeysan yahay in Ilaahay kurbada ka dulqaado, faraj khayr qabana siiyo. Inta xanuunsan allaha noo caafiyo, inta awlaad raadis awlaad baar allaha siiyo, inta guur xalaala doonaysa guur xalaala allaha siiyo, gabdho iyo wiilalba. Inta deemaysan deenta allaha ka dulqaado, inta hooyo isku buuxdan afar indhood oo abshir allaha ka dhigo. Dhammaanteena muraadkeena iyo muraadka muslimiintaba allaha sahlo, islaamnimadeena iyo iimaankeenana allaha noo quweeyo yaa rabbi yaa raxmaan. Markastana Ilaahay xaqa ha nagu sugo. Allaahumma yaa muqallibal quluub thabbit quluubanaa calaa diinik. Allaahumma yaa muqallibal quluub ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاداسنا ودعاء آد مهمسن oo koobaysa adduunyo iyo aakhiro wanaageedo dhanbo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى الدنيا وناجذ النسي وفي الآخرة حسنة آخرة وناجذ النسي وقنا عذاب النار. عذاب النار كان إلى ونجيه. ولا ليال سود وهذا سدا أسواركتين وحنك هذلينا قصص كالغاركي استغفارته فضل جذا إيو وناجذا. أنا وحن جعلها هنا إذن كبوري أو إذن كدير جليو أو نفتي نبى كدير جليو قصص كالغاركي خيرك حوق لذا استغفارته صلي النبي قرآنك ducooyinka biidni raxmaan waan idiin soo gelin doonaa. Ilaahina ha igu kaalmeeyo insha Allah. Yaal aan u gudagalna qisada koowaad. Waxaa ka sheekeynaya waa wiil waxa uu leeyahay waxaan ka cabsoodaa meelaha dhaadheer sida diyaaradaha, meel kasta oo joog dheer leh oo laga soo hooban karo aad ayaan uga cabsoodaa. Maskaxdeydana way dawaqi jirtay ayuu dhahay. Meel kasta oo koreysa marka aan koraba waxaan dareemi jiray cabsi fara badan iyo inay xaaladeyda caadi ahayn. Marmarka qaar diyaaradaha safarada oo diyaaradaha ii soo baxo waan iska joojin jiray sababtoo ah cabsi aan ka qabo iyo walwal igu furmaayo. Markii dambeento waxa ay soo food saartay ayuu dhahay in ay ii soo baxday flight kaas oo aan ka baaqan karin. wuxuu dhahay afka waxaan saaray istighfaarta 2000 ayaan akhriyay ayuu dhahay subaxdaasi. wax dawaqaad iyo wax wareer maan dareemin. wixii ka dambeeyay waxaan joogtay ayuu dhahay istighfaarta. haddana caadi ayaan u isticmaalaa oo wax mushkil ah kuma qabo inaan meelaha korkore iyo diyaaradaha aan raaco. alxamdulillaah ayuu dhahay waxaan ii suurtagelisay istighfaartii aan joogteeyay. inaha qisadiisa guud ahaan wiilkan waxay tahay in Ilaahay uga caafiyay istighfaarta darteeda cabsida uu ka walwali jiray meelaha dhaadheer iyo diyaaradaha raacidooda. Hadba qisadan kale waxa soo warinaya waa wiil waxa uu leeyahay ani iyo ehelkeena waxaan ugu dhacday musiibo aad u weyn. musiibadaasi oo igu qasabtay in aan ka quusto nolosha oo dhan. wax kasteentana waan ku fikiray ayuu dhahay. nolosha cariiri ayay igu noqotay. waxaan rajayn jiray ayuu dhahay xitaa inaan isdilo marmarka qaar. haddii isdilka xalaal ahaan lahay waan isdili lahay sababtoo ah murugada haysatay iyo culayska iyo kurbadana qabsatay waxa ay ka weyneed ayuu dhahay sanadkayga.
macnaha aad ayay iga weyneed ayuu dhahay balse Allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay alla weyn oo kariim ah ayaan xasuustay ayuu dhahay kadib wuxuu dhahay waxaan joogteeyay istighfaarta iyo ducada aniga oo niyeysanayo in Ilaahay nooga dulqaado murugadan kadib markii aan waday in badan oo muddo ah alxamdulillaah Ilaahay kurbadii iyo culayskii iyo murugadii iyo dhibaatadiina soo gaartay si yar ayaan uga soo kabanay haddana waxaan alxamdulillaah heer fiican ayaan joognaa ayuu dhahay wiilkaasi Allah subxaanahu wa tacaala waa midka ka dhiga wax kasta oo mustaxiil oo suurtagal ahayn suurtagal Ilaahay ayaana nasahan oo xumaan oo dhan ka nasahan khulaasada qisadan waxay tahay reerkaasi murugadii iyo walwalkii iyo kurbadii haysatay Ilaahay wuxuu ga dulqaaday iyo musiibooyinkii ku dhacay istighfaarta marka uu joogteeyay wiilkooda kalena waxa uu leeyahay waxaan jeclaystay inaan idinkaga sheekeeyo tajrubadii aan tajrubeeyay istighfaarta alaha qisadan dhageysan doono ugu degdegaan istighfaarta ayaan u soo gudbinayaa waxay leedahay waxa isku kor imaaday 10 mowduuc oo kala duwan oo culaysaad ah balse waxaan aaminsanaa oo yaqiinsanaa ee dhahday 3 qodob ayay ka hadasho oo ah anna Allah idha habba 'abdan abtalaahu Ilaahay hadduu adoonkiisa jeclaado wuu ibtileeyaa oo imtixaan ayuu ku salidaa waxaan kaloo aaminsanaa ee dhahdo qodobka labaad laa yukallifu Allahu nafsan qadaaqatiha oo ah inuusan Ilaahay qof bini aadan ku kallifeynin wuxuu awoodin wax asaga ka awood badan inuu Ilaahay ugu kallifeynin ayaa ogaayay waxaa kaloo yaqiinsanaa ee dhahday amrul mu'mini kulluhu khayr qofka mu'minka wax kasta oo ku dhacay inuu khayr yahay kulli wax kasta inuu Ilaahay u qadaray inuu khayr u tahay aan aaminsanaa dhahday saddexdaas qodob ayaa nolosheedu ku beesgareeyay dhahday markaan culayska iga batay oo fikiray ayaan waxay dhahday ku qancay noloshii balse si aan kurbooyinkaas Ilaahay iga dulqaado ayaa waxaan sameeyay ayay dhahday in aan bilaabay in acmaashi wanaagsan aan u degdego istighfaarta aan badiyo waxay dhahday markaa istighfaartii ayaan badiyay dhahday marka si uusan istighfaartaas sheedaan ayaa waxay tiri aad ii haystay sheedaankaas si aan ula dagaalamo waxay dhahday istighfaar waxaan soo gatay dhahday tasbiix fara badan ayaan soo gatay guriga soo dhigtay ugu yaraan 20 tasbiixood ayaan soo gatay dhahday waxaan sameeyay dhahday qaar qolka jiifkaan dhigay qaar qolka fadhigaan dhigay waxay dhahday boorsadeeda qaar ayaan geliyay meel kasteento aan isticmaalayo waxay dhahday tasbiix ayaan dhigtay sababtoo ah sheedaanka ay la dagaalay dhahday tasbiixda marka hal iyo laba soo gato ilmaha xaqooda ayuu ii soo maraa ilmahan iga gooynay dhahday si aysan arintaas iigu dhicin oo wax tasbiixa u weynin waan soo badsaday ay dhahday tasbiixdii kadib waxaan sameeyay ayay dhahday inaan ugu yaraan 1,000 mar maalintii aan istighfaarsado ilaa 10,000 aan geen jiray dhahday istighfaarta waan waday ayay dhahday muddo adiga markay dhahday aan waday istighfaartii laba isbuuc oo kale intii waxay dhahday alxamdulillaah waxaan isku arkay ayay dhahday uurkaasi oo yacni da'dii aan uurka ku qaadi lahaa ay ahayn ilmo horan wax ilmo uma soo dhalin ayay dhahday oo nolosha waan ka quustay alxamdulillaah waxay dhahday uur ayaanba isku arkay ayay dhahday tilaabtii koobaadba Ilaahay waxaan ogaayay dhahday inuu wax kasteento oo khayr ii qoray oo isiin doono wax kasteento oo maraayan inay khayr ii tahay ayaan ogaayay dhahday waxay ahayd gabadhan gabar yaqiin badan subxaanallah kadib markii aan waday ayay dhahday muddo bil markaan waday oo haddana waxay dhahday adiga aan tasbiixdii waday istighfaartii aan waday subaxyada kamida waxay dhahday markii aan waday muddo bil kadib haddana waxaan ka balansanaa ay dhahday xafiiska oo shaqo ayaa ii dalbaneed subaxdaas waxaan sameeyay ay dhahday 5,000 oo mar ayaan istighfaarta akhriyay alxamdulillaah jawaab khayr qabtana waan kala kulmay mudiirkii alxamdulillaah shaqadiina waan helay ay dhahday maalmo kale kadib waxay dhahday waxaa haddana iga xalismatay ay dhahday mushkilad aniga caailadeedina dhex taagneed ayaa qayb kamid iga xalismatay haddana waa wadaa ayay dhahday istighfaarta waxaana rajaynayaa inay inta hartay yani ii xalismato dhahday riyooyinka iyo rajooyinka aan leeyahay waa kuwo fara badan laakiin waxaan ku kalsoonahay ayay dhahday Allah iyo haddaan joogtay istighfaarta in wax kasteento oo mushkilad
iga xalismi doonto walaalaha kalena waan ku dhiirigelinayaa ayay dhahday in ay bilaabaan istighfaarta intii hore u wadayna ha sii dadaasho. qisadana waxaa ka sheekeynaysa gabar waxayna ka mid tahay qisooyinka laga arkay suuratul baqara. waxa ay tiri gabadha aan habaryarta u ahay ama gabadha walaasheeda ay dhashay sida kale markaa u dhigno da'deeda waxay gaartay 35 sano mana jirin qof soo doonanayo ayay dhahday. akhyaarta ayaa waxay ku baraarujisay ama u sheegtay inay akhrisato suuratul baqara maalin kasteentana waxay akhrin jirtay ayay dhahday cishaha marka ay tukato kadib habeen kasto ayay akhrin jirtay ayay dhahday suuratul baqara. markii ay 3 bilood waday waxaa soo doontay ayay dhahday gabadhii nin caan ah oo rajul wanaagsan ah oo shaqo wanaagsan haysto oo meel sare hayo ayaa soo doontay ayay dhahday oo gabadhiina guursaday. subxaanallah, ilaah ayaa nazahan wuxuuna ahaa ay dhahday waliba nin diin leh oo nasab fiican ka dhashay. tani oo kooban waxa ay tahay gabadhani waxa ay ka sheekeynaysaa gabadha ay habaryarta u tahay oo walaasheeda dhashay inay gaartay da'dii 35 sano oo aanan soo doonan qof bini aadan ah oo rag ah balse lagula taliyay inay akhrisato suuratul baqara marka ay joogtay inay suuratul baqara akhrisato waliba bacda al-cisha markay tukato ay akhrin jirtay ayay dhahday. hal habeenna kama ay tagin inay akhrisato suuratul baqara marka ay waday 3 bilood ayaa la soo doontay waxaana soo doontay nin wanaagsan oo dhan walba ka dheelitiran madax ee shaqaysto nasab fiican ka dhashay diin leh wax kasta dhinac walba ka dheelitiran ayay dhahday ayaa soo doontay. alxamdulillaah hadan wuu guursaday nolosheedana way u qurux badan tahay. gabadhina waxay tiri wali kama ay tagin inay akhrisato suuratul baqara oo waxay sheegtay nolosheeda oo dhanba inay nuur noqotay waxba ma tamanisa ayay dhahday ilaa waa ay heshaa. fadligaas iyo barakadaas oo dhanna waxay ay ku heshay ayay dhahday akhrinta suuratul baqara. suuratul baqara rasuulka ayaaba noo sheegay akhduha baraka wa tarkuha xasra. qofka akhriyo oo qaata suuratul baqara barakooyin fara badan ayuu helayaa qofka tagana khasaaro baa u sugnaatay. qisaskeeni maanta intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa walaalaha qaaliga ah. haddaa inta soo gaarteen aad iyo aad u mahadsantihiin jasaakumullahu khayran. aan badina ducada iyo dikriga allah quraan akhrinta insha allah aan isku soo duceyna meel kastoon joogno khayrka iyo wanaagga iyo tawfiiqda mideeda wanaagsan allahna waafajiyo biidni raxmaan. gafkeena iyo geerideennana ilaahay ma kulmiyo madeennada khayr allah nooga yeelo biidni raxmaan. kelmadda afkeena ugu dambeysana kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah allah ka dhigo. qof kastoo walaalo culays haystana culayska allah ka dulqaado aamiin insha allah. aanan badina salliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. ajar fara badan iyo khayraad fara badan ayaa laga helaa. waana mahadsantihiin usii sheer gareeya walaalaha kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.